dastuurkan ninka gaalka iyo ninka muslimka oo u dhashay galmudug oo qabaa'ilada galmudug ka soo jeedo xaq uu ku leeyahay xaqiisa inuu ka helo waay in si sax loo fiiriyo waay shalay markii la qorayna saas u ahaa maanta markii la qorayna inuu soo noqdo waxaan rabaa inaan u digo annaga waxaan naloo doortay galmudug waxaan u dhaarnay galmudug waxaan dastuurkeeda ugu taaganahay galmudug arrinta aan ku taaganahayna oo aan ku soconnana ma aha wax galmudug duminaya ayadaana taageersanahay inaan nagula shaqaysaan qabyaalad iyo qabiil wax la dhahana meeshan kama jiraan waxaana ka dareemi kartaan intaan wada socoto laba isku qabiil ma leh wax ka dhaxeeyo dan qaasana ma jirto wax lacag ku bixinayana ma laha laakiin danta hawsha naga dhaxayso waxay tahay in wixii aan u dhaarnay ilaalino ayadaan ilaalino waan ku dhimanaynaa inaan ku dhimanano diyaar sheekooyinka soo noqonayo oo dhahaya guri shabaab la joogaa iyo muxuu ahaa dada shabaab iyo waxyaabaha la midka horta shabaab waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaas joogta qofkii la dagaalay qof kale jirta laakiin anaga shabaab waxaan ka aaminsanahay urur argagixiso inuu yahay oo beesha caalamka oo dhan ogtahay Soomaaliduna ogtahay dagaalna naga dhaxeeyo naxariis iyo jannana qofka kala dhaxayso ma jirto marka qofka sheegay midda asaga ah u maleena qaraabo yihiin marka asaga inuu aad u fiican diilayaa